dalka Mareykanka ayaa bilihii u dambeeyay waxa ka dhacayay goobaha lagu caweeyo dilal iyo waliba qaraxyo loo geysanayay dadka goobahaasi ku sugnaa waxaana geysanayay shakhsiyaad iyagu sitay hub ay si toos ah uga iibsadeen dukaanada waaweyn ee hubka lagu iibiyo ee dalka Mareykanka. haddaba baarlamaanka dalka Mareykanka oo fadhi yeeshay ayaa diiday qorshayaal lagu sii xoojin lahaa xakamaynta hubka ee waqtigan halisaha badan ka geystay dalka Mareykanka. fadhigan ay yeesheen senatoriska dalka Mareykanka ayaa la horgeeyay 4 qorshe kadib markii 49 ruux lagu dilay weerar ka dhacay bar ku yaala Florida dalkaasi Mareykanka. fadhigan ayaa xubnaha aqalka sare ee dalka Mareykanka waxay u kala codeeyeen qorshayaashii iyagu awalba ay jabadaha ku kala siteen xisbiyada dimuqraadiga ah iyo kuwa Republican-ka ahi. xildhibaanadan ayaana qolo kasta ka soo horjeesteen qorshihii ay wateen xisbiga kale. xubnaha ka tirsan baarlamaanka dalka Mareykanka ayaana si weyn isugu khilaafay sidii mustaqbalka looga hortagi lahaa dalka Mareykanka in weeraro dhibaato iyo dil ballaaran geysta ay ka dhacaan. John Comedy oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ah ayaa sheegay in saaxiibadii ay doonayaan xakamaynta hubka meeshii ay ka ahayd in wax la qabanayo ay noqoto in la cirib tiro Islaamiyiinta xagjirka ah taas oo ah waxa ay salka ku hayso ayuu yidhi wixii ka dhacay Orlando dalka Mareykanka. waxaanu intaas ku daray in saaxiibadii ay doonayaan in ay daweeyaan calaamadaha xanuunka soo socda laakiin xanuunka laftigiisa aan dawo loo helin. Our colleagues want to make this about gun control when what we should be making this about is the fight to eliminate the Islamic extremism that is the root cause for what happened in Orlando. My colleagues, in many ways, want to treat the symptoms without fighting the disease. And there is absolutely nothing in the Feinstein Amendment that would have prevented the Orlando shooting from occurring. Nothing. gabadha la yiraahdo iyana Barbara Mikulski oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee dalka Mareykanka fadhigana goobjoog ka ahayd ayaa tiri maxay tahay sababta aan baaritaano xoog leh u marno marka aanu diyaaradaha raacayno haddana aynaan wax baaritaano oo xoogan aynaan u saarin dadka ku jira liiska argixisada ee looga shakisan yahay. Why is it we would go through such incredible scrutiny to board an airplane to protect me against terrorists? And yet we have no scrutiny of the people on a terrorist watch list to be able to buy a gun.